Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah waxay xukun ku riday nin oday ahaa lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Axmed Cali Eebakar ayaa loo haystay ka mid ahaanshaha Al-Shabaab gaar ahaan inuu u qaabilsanaa inuu u kireeyo guryaha ku yaala magaalada Muqdisho iyo inuu wakiil uga ahaado xarumaha caafimaadka ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho. Axmed oo ciidamada amniga xogtiisa hayeen ayaa laga soo qabtay mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho waxaana xilligaasi la qabtay bukaan Al-Shabaab ah oo ku diiwaan galiyay inuu adeer u yahay sida lagu sheegay war ka soo baxay maxkamadda ciidamada. Ugu horeyn maxkamadda ayaa u jeedisay eedeynta loo haysto Axmed Cali Eebakar ee ah ka mid ahaanshaha Al-Shabaab iyo inuu qaabilsanaa xanaaneynta bukaanada Al-Shabaab ee la keeno gudaha magaalada. Garsoorayaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa kiiskan waxay ku qaadatay saacado dhageysigiisa iyadoo ugu dambeyn lagu xukumay 10 sano oo xabsi ciidan ah sida uu warbaahinta u sheegay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya.